waxaynu ku qaadanaa yaraanteena 12 sano inaynu wax soo baranno iyo 4 jaamacada oo isku noqonaysa markaasi 16 sano oo waxbarasho ah. weligaa iyo allahana maad arag qof intuu ku istaajiyey ku yidhi waar waxun baad barataaye ma taqaanaa sida wax loo barto. haddaba waxaan halkan kuugu soo koobayaa markaasi kooras aad u qiimo badan. kooraska magaciisa waxaa la idhaahdaa learn how to learn, tacalam kayfa tatacalam, baro sida wax loo barto. waxaana bixiya websaydyada adduunka ugu caalamisan mid ka mid ah, magaciisana la idhaahdo coursera. kooraskan waxaa ka faa'iidaystay ku dhowaad 3 milyan oo qof, waana koorasyada ugu sareeya, welibana kaalinta labaad ayaabuu soo gelayaa duruusta lagu bixiyo websitekan. waxaan jeclaystay markaa inaan walaalahay la wadaago anoo soo koobaya markaasi kusoo koobaya 3 xalqadood oo mid kasta ay ka kooban tahay 10 daqiiqo. qaybteenan koobaad waxaynu ku qaadan doonaa maanta 3 arrimood. waa maxay waxbarashadu? ma huwa tacallum? 2 addaakira, xasuusta iyo maskaxdeenu say wax u qabataa ay wax u barataa. 3 talooyin iyo nasaa'ix ku saabsan qaabka wax loo diyaariyo ama wax loo fahmo. haddaba soo qaado qalinkaaga iyo buugaaga, soona diyaarsano koobkaaga biyaha ah, aynu markaasi ka faa'iidaysano. aynu ku bilowna marka ugu horeysa tallaabada koowaad oo ah waa maxay waxbarashadu? waxa kownkan dusheeda yaala waxa ugu mucjisaysan waa maskaxda bini'aadanka. maskaxda bini'aadanka waxaa la idhaahdaa waxay ka kooban tahay 100 milyan oo markaasi casabiya ama khalaaya casabiya ama neuron ama nerves waxa loo aqaano, mid kastana ay u sii qaybsanta markaasi 10 koob. taas macnaheedu tahay waxaad maskaxdan ku xambaarsan tahay 100 trilyan oo markaasi khalaaya casabiya ama neurona. haddaba see wax loo bartaa? waxyaalaha wax lagu barto waxa la idhaahdaa laba nooc bay u qaybsamaan: focus mode ama diffuse mode. focus mode u fiirsasho iyo u fiirsasho la'aan. مثلا tusaale ahaan markaad xisaab ka shaqaynayso, xisaabtaas waxay kaaga baahan tahay inaad xisaabtaa waqtigaaga oo dhan gelisid, xisaabtaa u fiirsatid, xisaabtaa mooyaane wax kalena aad ka fikirin. waxaa jira namad kale oo taa ka duwan oo la idhaahdo diffuse mode, oo ah markaasi markaad wax baranaysid amba waxaad doonaysid inaad fikrad ka shaqaysisid, inaad maskaxdaada u sii daysid, intaad yara fikirtid maskaxdaada markaasi faraha uga qaadid si ay iyadu wax u wado. waana dareentaa marmarka qaarkood. waxaa ka mid a markaad sii seexanaysid oo kale, markaad furaashkaaga saa u tegtid waxaa laga yaabaa inaad fikrad kugu soo dhacdo adigoo sii seexanaya, fikradaas inay noqoto wax aad u raadinaysay ama waxaad ka fikiraysay si aad u xaliso xalkaygii aad hesho. waxaana dhacda badanaa inaynu idhaahno subaxaad qori ama subaxaad ku dhaqmay, laakiin aynu soo toosnayna ku ilownay. maxaa xal ah? markaa inaad kacdid ood mobilkaaga ku nood garaysatid. haddaba namadka ayaa isticmaali jira. waxaa la idhaahdaa 2 nin baa aad u isticmaali jira. waxaa ka mid ahaa thomas edison. muu ikhtiraacin oo keliya laambad iyo layrin, oo ikhtiraacadkiisa iyo waxyaaluhu markaasi adduunka kusoo kordhiya aad bay u badnaayeen. muxuu samayn jiray? wuxuu samayn jiray diffuse mode buu badanaa ikhtiraacadkiisa markaasi ku sameeyay. waxaa la idhaahdaa wuxuu soo qaadan jiray fure, wuxuu fadhiisan jiray kursi, wuxuu iska dhigi jiray markaasi nin jiifa oo kursiguu ku seexan jiray, maskaxduu kaga shaqaysiin jiray, markaas faruhu uga qaadi jiray, iyadaa fikri jirtay. markuu sii seexanayo kale furaha ka dhici jiray, uu soo baraarugi jiray, kadib fikradiibuu ku dhaqmi jiray ama u qaban jiray. bal aynu u dhaqaaqno xaggii maskaxda iyo memoriga, qaybta memoriga maskaxdaada, qaybta kaydka maskaxdaada ah. say maskaxdaadu wax u kaydisaa, say maskaxdaadu wax u qaybtaa. qadar nasasho ah intaynanu bilaabin. qaadka maskaxda bini'aadanka waxaa la idhaahdaa waa 2.5 milyan gigabyte. haddii loo dhigo muuqaal wax lagu duubo noqonaysa 4 milyan oo saacadood. haddaad tidhaahdid muuqaalka daawana 300 oo sano bay kugu qaadanaysaa. hagaag waxaynu u gelaynaa qaybteenii labaad ee ahayd markaasi xasuusta ama sida wax loo xifdiyo, sida wax loo xasuusto. waxaa la yidhaha xasuustu waxay u qaybsantaa 2 qaybood oo keliya: xasuus fog iyo xasuus dhow. xasuusta dhow haddaynu ku bilowna waxaa weeye inuu qofku xasuusto macluumaadka imika uu ogaado ama uu korarsado in yar kadib. isku day inaad xasuusatid lambarkan hortaada yaala: 9 1 1 4 6 5 2 4 7 1 eber 2 9 1 1 3 6 5 2 4 7 1 eber 2. laga yaabaa inaad xasuusatid 3 lambar ama 4 lambar ee ugu horeeya. maxaa yeelay waxaa la idhaahdaa xasuusta dhow waxay qaadaayo keliya 4 macluumo oo cusub, 4 khaanadood oo keliya u bannaan. sida iminka haddaan ku weydiiyo laga yaabaa lambarkii inaad ka xasuusatid 4 ugu horeeyo keliya: 9 1 1 3 6. macluumaadka ay qaadaysaa markaas macluumaad aad u kooban weeyaan, maxaa yeelay qaadkeega aad u yar. cagsigeega waxaa ahaaday xasuusta fog ama xasuusta ama waxaynu u aqaano xifdiga. haddaba xasuusta fog waa maxay? xasuusta fog waa sidii bakhaar weyn
oo qaadkiisu aad u weyn yahay oon la soo koobi karin waxa lagu qaadi karo. laakiin waxay u baahan tahay sida wax loogu xiftinayo amba wax loogu kaydinayo inay noqoto markaasi si farsamaysan. waxaa la yidhaahdaa shayga keliya ugu habboon ee macluumaadka lagu gudbin karo ama lagu geyn karo xasuusta fog waa in shaygaa lagu celceliyo. ku celcelintu maaha inaad ku celceliso imika 20 jeer, balse waa inaad maalimo kala duwan saacado kala fog aad ku celceliso. haddii imika macluumaad aad hayso aad ku celiso 20 jeer imika adoo jooga, laga yaabaa inaad macluumaadka in badan aadan sii hayn karin ood hore u ilowdo. balse haddii aad macluumaadka maalin kasta u samaysid waqti yaroo kooban ood ku celcelisid waqtigaa kooban, waxaa la yidhaahdaa waxa adkaanaysa markaasi neuralka mas-uulka ka ah xifdinta. neuron baan kugu dawaqiya aan tusaale fudud. qofku hadduu gym tago imika uu jimicsado maanta 5 saacadood uu iska daayo 7, laga yaabaa inuunan helin murqyo adag, laga yaabaa inuunan jirkii uu rabay inuunan helin. balse haddii uu maalin kasta 40 daqiiqadood oo keliya uu jimicsado, laga yaabaa maalinba maalinta ka dambaysa in uu u kordho jidh aad u wanaagsan oo qurux badan. waa sidaasoo kale maskaxdaaduna waxay u baahan tahay maalimo kale fogfog inaad wax ku kaydisid si ay macluumaadku u tagaan xasuusta fog. sidoo kale waxaa la yidhahaa qofka waxaa muhiim ah inuu hurdo wanaagsan qaato, waayo marka qofku seexdo maskaxdiisu aad bay u shaqaysaa, shaqooyin fara badanna way qabataa. waxaa ka mid ah inay maskaxda markaasi refresh fara badan siiso qaybta memorieska ama qaybta xasuusta iyo xifdiga. waa sida gaari oo kale. gaarigu markasta wuxuu u baahan yahay in la jeegareeyo oo la geeyo markaasi meelaha lagu jeegareeyo si aan markaasi qofku uga hortago ciladaha kusoo baxaya. saasoo kale maskaxdaadu marka seexatid eed siisid control, iyadaa ka shaqaysa qaybaha xasuusta. waxaana la yidhaahdaa aad bay muhiim u tahay inaad hurdo wanaagsan qaadatid si xifdigaagu u wanaagsanaado. intaynanu qaybta saddexaad gelin, aynu ku nasanno macluumadan kooban. waxaa la yidhaha maskaxda bini'aadanku boqolkiiba 73 waxay ka kooban tahay biyo. saa daraaddeed waxaa wanaagsan inuu qofku biyo cabo markuu wax diyaarinayo, markuu wax xifdiyayo, iyo sidoo kale markuu wax akhriyayaba biyaha badso. waa maxay talooyinka wanaagsan eed isiinaysaan si aan wax u xifdiyo ama aan u noqdo qof awoodi kara waxyaaluhu diyaariyey inuu soo xasuusto? kow, tallaabada ugu muhiimsan ee lagu siinayo waxa weeyaan macluumaad marka doonaysa inaad qaybtid amba aad xifdidid amba aad soo xasuusid. isku day macluumaadka cusub eed baranaysid inaad ku xidhiidhisid markaasi sawir, sida imika shaashada hortaada kaaga muuqato. haddaba imika laga yaabaa inaad soo xasuusatid lambarada, waayo lambar kasta waxaad ku xidhay markaasi sawir. saa daraaddeed macluumo kasta oo diyaarinaysa isku day inaad ku xidhid sawir si aad xasuustuna u dhawaato oo u soo fududaato. qaababka wax loo diyaariyo waxaa ka mid ah inaad ku xidhid macluumada laxni. sida gabay baad xifdiyaysaa imika, gabayga waxaad isku daydaa heestii laxnigii heestii hidiidii iyo hidii inaad ku xidhid gabayga. imika gabayga sidan ah waa gabay carbe. sawtu safiiru bulbuli hayaja qabli, inaadan xasuusan baa laga yaabaa, balse markaad ku xidhid laxni sida sawtu safiiri bulbuli hayaja qalbi famili hidiidiyoy hidii, waxaad ku xidhay macluumaadkan laxni, waxaana fududaanaysaa inaad hore usoo xasuusatid, si wanaagsanna u qaybtid, horena u xifdidid. isku day inaad ku xifdidid markaa laxni. waxaa kaloo la yidhaahdaa waxaa ka mid ah trickska amba tallaabooyinka wanaagsan ee wax lagu diyaariyo. waxaa ka mid ah in uu qofku markaasi magacaanta 3 saxaabiyo kale magacaantooda xifdiyaysa. 3dii saxaabiye lagu canaantay inay kadib dhaceen markaasi ghaswadii Tabuk waxay kala ahaayeen Maraara bin Rabiic, Kacb bin Malik, Hilaal bin Umayya. saddexdooda magac, saddexda xaraf ee ugu horeeya isku day inaad soo qaadatid magaca ka samee, sida kaaf, miim, ha. maka, markaad maka ku dhawaaqdid waxaad soo xasuusanaysaa 3dii saxaabi eed ku xidhay. 3dii saxaabi imtixaanka oo kale aad bay ku caawinaysaa. markaad wax diyaarinayso waxaa lagaaga baahan yahay in aadan buuga markaaba kala furin. shalay waxbaad diyaarinaysay, maanta markaad soo fadhiisatid isku day inaad wixii shalay aad diyaarisay aad qortid, akhridid, ku dhawaaqdid, codkaagana adoo kor u qaadaya. taasi waxay kaa caawinaysaa inaad isqiimayn kartid. wax diyaari waqtiga kala fog. ceebaha waaweyn ee dhallinyaradeena haysata waxaa ka mid ah 7 saacadood oo isla xidhiidha ayaaba ku jiraya library. waa waali cas. tallaabada ugu dambaysa layna siinaya si aynu wax u xasuusano, xasuusteenana u wanaajino waxa weeyaan memory palace. memory palace waa maxay? in aad macluumaadka ku kaydisid meelo. imika iskuul baad tagtaa, iskuulkaaga wuxuu ka kooban yahay samuurad, marwaxad, kuraasi, waxa qolal, albaabo kala duwan. maalinta imtixaanka aad geli sidoo kale isku day macluumaad aad doonaysid inaad xasuusatid ugu muhiimsan oo kale formulada ama qaacidooyinka oo kale
albaabka qaacido duldhig albaabka marka saa u eegtid waa inaad qaacidada xasuusato office-ko kale macluumo ku xifdi marka waxaa dhici karta marka saa usoo geshid albaabka saadaad u eegtid inaad xasuusatid markaasi memory pluskaas markaasi aad bay taqniyadaasi muhiim u tahay laga yaabaa waxyaalo fara badan inaad fahmi weydo sidoo kale waxaa muhiim ah inaad ogaato laba shay in kooraskani uu yahay mid aan anigu soo koobay isagoo dheer oo ballaarhana aad ka heli karto descriptionka amba kooraska carabiya iyo kooraska ingilishiyana hoosta kusoo dhigay la soco qaybaha soo socda waxaad muhiim ah inaad sii gudbiso ood walaalaha u sheergarayso si ay uga faa'iidaysto